howlgalkan qorsheysan oo ciidanka nabad sugidda qaybahooda kala duwan iyo ciidanka booliiska gaarka ee Haramcad ay waxay ka sameeyeen wadada isku xirta Afgooye iyo degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo howlgalkan ujeedkiisa uu ahaa beegsiga khawaarijta al-shabaab oo si dhuumaaleysiya u soo galo wadooyinkan isla markaana shacbiga ku dhibaateeya deegaano gaar ah ay ciidamadu howlgal gaar ah ka sameeyeen halkaas oo ay ciidanku ku dileen horjoogyaal ka tirsan khawaarijta al-shabaab iyo maleeshiyaad kale kuwaas oo dhibaato weyn ku hayay shacbiga deegaano dhowr ah ay ciidanku ka sameeyeen howlgalka deegaanada duleedka magaalada Muqdisho ku yaala ee sida gaarka ciidanku howlgalka uga sameeyeen waxay kala yihiin deegaanka Garas Gawaan deegaanka Galka Saalimo iyo deegaanka Ceel Marcad oo duleedka Muqdisho ku yaala halkaas oo ciidanku ay ku burburiyeen maxkamad beenaad ay khawaarijta al-shabaab dadka halkaas ay ku lahaayeen sidoo kale waxay ku dileen horjooga ka tirsan khawaarijta iyo maleeshiyaad la socday iyadoo howlgalku ku soo ilaaday mid si guul ah ku soo ilaaday oo ciidanku ay sidaas uga sii gudbeen sidoo kale ciidanku howlgalkoodu waa uu sii socday kuma aysan sii ekaanin duleedka Muqdisho waxa ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaanka lambar 50 ee hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose waxay halkaas sidoo kale ku burburiyeen ciidanka sida gaarka ah u tababaran booliiska Haramcad iyo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA qaybahooda kala duwan meel ay khawaarijta al-shabaab lacag maaliyada oo beenaada oo si sharci darro ah ay shacbiga ugu qaadayeen iyadoo halkaas ay ciidanku burburiyeen khawaarijtii halkaas joogayna firxadkooda qaarkood ay kala carareen ciidanka ayaana wali ku sii guda jira howlgalka sidoo kale ciidanku waxay howlgallo ka sameeyeen deegaano ay kamid yihiin Gumaysideed ay Guute Busley Daawud iyo Buula Arundi kuwaas oo dhamaantood ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan waxa ay ciidanku saraakiisha hogaaminaysa noo sheegay inuu sii socon doono oo ilaa laga cirib tirayo khawaarijta al-shabaab oo howlgalkan sii socon doono sida uu noo xaqiijiyay taliya Cabdixakiin Xuseen Xasan Karkar oo kamid ah saraakiisha hogaaminaysay howlgalkan halka hadda aan ku suganahay waa deegaanka Buufow ee hoos yimaada degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo ciidanku ay ka soo baxeen magaalada Muqdisho ay si toos ah halkan u yimaadeen iyadoo oo kolonyada galbinaysay ciidanka xoogga dalka oo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo ciidanka booliiska gaarka ee Haramcad aynu kamid ahayn si nabad ayaan halkan ku nimid iyadoo aysan jirin wax dhibaato ah oo ay khawaarijtu sameynayeen maadaama ay ka cabsanayaan naftirkoodu in ciidamada oo si gaar ah u tababaran howlgalkana u diyaarsanaa inaysan jidka soo geli karin balse waxay ciidanka saraakiisha hogaaminaysa noo sheegeen in uu sii socon doono howlgalkan ilaa laga cirib tiro khawaarijta al-shabaab